maxamed nuur oo hore uga tirsanaan jiray ciidanka booliiska ee magaalada Minneapolis ayaa maxkamadda degmada Hennepin ee gobolka Minnesota waxay maanta ku xukuntay 12 sano iyo 6 bilood oo xariga. maxamed nuur ayaa bishii Abriil ee sanadkan xeerbeegti dhageysanaysay eedo ka dhana waxa ay ku heleen 2 fal dambi oo ahaa inuu dilay Justin Rusjek oo loo yaqaanay Justin Damon. maxamed nuur ayaa sanadkii 2017 waxa uu toogtay Justin Damon oo iyadu booliiska u wacatay si ay u diiwaan geliso fal dambiyeed ay sheegtay markaa inuu ka dhacayay dibadda dambe ee gurigeeda. ka hor intii maxkamaddu aanay xukunka ku ridin maxamed nuur ayaa waxa uu maxkamadda ka hor sheegay inuu ka xun yahay in Justin Damon ay gacantiisa ku dhimatay, waxa uuna xusay in cabsi uu dareemay darteed uu toogashada u geystay. balse markii uu arkay Justin Damon oo naftu ay ka baxayso uu si weyn u argagaxay isla markaana uu xaqiiqsaday inuu qaldamay. maxamed nuur ayaa qoyska Justin Damon ka raali geliyay toogashada gabadhooda. I can't apologize enough, and I will never be able to make up the loss that I caused. In ku filan cudurdaar kama bixin karo, weligeyna ma awoodi doono inaan soo celiyo khasaarihii aan u keenay qoyska reer Rusjek. garsoore ma doonayo inaan reerkayga waayo, ma doonayo inaan wiilkayga noloshiisa ka maqnaado. marka laga yimaado waxaan ka cabsanayo waa inaan oggolaadaa inaan anigu arrintan geystay, noloshayda inta ka hadhayna aan la noolaan doono. dhinaca kale Justin Damon lamaanaheedii Dan Damon ayaa isna qoraal uu iyada ugu talagalay waxa uu ka akhriyay gudaha maxkamadda, waxuuna aad ugu dheeraaday sawirka nolosha ay rabeen inay wadaagaan iyo sida uu u tabay. waxa uuna yidhi ma aqaano waxaana sida ay kuugu dhaceen aniga iyo adigaba. labadeennuba waxaannu ahayn dad u laab furan inay dadka kale u naxariistaan. jacaylkaagu waxa uu qalbigayga ku abuuray qaabab aanay ogayn inaan wax u jeclaan karo. maxamed nuur ayaa noqonaya booliiskii ugu horreeyay gobolka Minnesota ee xabsi lagu xukumo dembi uu geystay isagoo shaqadiisa ku jira awgeed. jaliyada Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota ayaa go'aanka maxkamadda waxay ku tilmaameen inuu ahaa mid cadaaladda hareer marsan. cabdinaasir xirsi oo loo yaqaano Gani waxa uu ka mid ahaa dadka sida joogtada u imaan jiray maxkamadda intii ay socotay maxkamadaynta maxamed nuur. waxuuna rumaysan yahay in xukunka lagu riday maxamed nuur uu ahaa mid ku salaysan midabkiisa iyo diintiisa, balse aan u ahayn mid loo maray waddada lagula dhaqmo dembiyada ay geystaan booliiska kale. kiiskani wuxuu ahaa kiis ka duwan oo aan cadaalad darro xoog badan ay ka dhacday. waxaanan dhihi karaa boodhkaas black muslim immigrant is guilty. taas weeyaan wax sidaan leenahay. maxamed nuur ayaa waxa uu ka mid ahaa Soomaalidii ugu horreysay ee ka mid noqota ciidanka booliiska ee gobolka Minnesota. waxa uuna haatan booliiska Soomaaliyeed ee gobolkan ay tiradoodu gaaraysaa 23 askari, halka 12 kalena la filayo inay dhowaan ku soo biiraan ciidamada booliiska ee magaalooyinka kala gedisan ee gobolka ka howlgala. hase ahaatee jaliyada Soomaaliyeed ayaa xukunkii maxamed nuur kadib waxay walaac weyn ka muujinayaan ka mid noqoshada booliiska gobolka. nuur cabdulaahi cabdiraxmaan waxa uu ka mid ahaa jaliyadii maanta isugu soo baxday maxkamadda degmada Hennepin. haddaa booliis tahay oo nin Soomaaliyeed aad tahay isweydii maxaa u noqotay booliis? ma lacagta ma titleka? haddee tahay lacagta shaqooyin badanaa jira oo mataqaanaa lacag badan ka subin kartid. haddee tahay titleka boqolaal shaqaa maxaa jiraan oo titleka ka fiican oo ka darajo fiican oo meel ku aadaysid aa ka helaysid. isweydii maxaa u noqotay? waa ujeedda maanta waxa ku dhacay nuur, beri aday kugu dhici karaan. dhinaca kale ururka isutaga booliiska Soomaalida ee Mareykanka ayaa bishii hore qoraal ay soo saareen waxa ay ku sheegeen in kastoo aanay ku qancin go'aankii xeerbeegtida ee ka dhanka ah maxamed nuur, haddana inaanu ka horjoogsan doonin inay sii wataan shaqadooda iyo dhisidda kalsoonida bulshada ay u adeegaan. maxamed nuur ayaa sida ay maxkamaddu sheegtay waxa uu ku xirnaan doonaa xabsi ku yaala magaalada St. Cloud ee gobolka Minnesota oo ka mid ah magaalooyinka ay Soomaalidu ku badan yihiin. 12 sano iyo barka lagu xukumay maxamed nuur ayaa sida uu qabo sharciga Minnesota waxa uu xabsiga ku jiri doonaa 3 meelood oo 2 meel. maxamuud mascade VOA Minnesota.